waxaan jecelnahay dawladdu inay xukunka ku dedejiso inayna sii hilmaamin inayna inta dhiiggaana uu qoyan yahay ayakana dhiiggooda la daadiyo ee shabeella la suro meydkooda in la suro sababtoo diintaa nafaraysa in la suro civilization iyo ilbaxnimo iyo maraykan iyo western baan eedaynahaya maaha sida islaamku nafarayo waa mufsidiin fil ardina waxaa loogu talagalay in inta la salbiyo meydkooda la suro sida xbari ay surnaadaan siday ugu cibrad qaataan ilmaha yaryarka ah ee dadka laynahaya iyo kuwa la soo diraya iyo kuwa soo diraya kuwa waaweyn ee madaxda u ah ilmahoodii ogaada waxbarashay ugu jiraan ilmahooda dabka uma soo diraan ilmahooda dadka kuma soo diraan ayukuna safka ma soo galaan meel bay fadhiyaan waxay soo diraan ilmo islaamiyaad oo dad kale dhaleen way kuwoodiina way badbaadsadeen qaarkoodna magaalooyin waaweyn bay degan yihiin oo ay wax ku bartaan xaasaskooda iyo ilmahooda magaalada waa in laga qabtaa nabad sugidda waxaan leenahay xaas shabaab waa jaajuus ilmahoodana waa jaajuus magaalada waa in laga qabtaa yaan waxba la yeelin laakiin ha laga saara magaalada sababta guryaha ay ku soo dhuumanahayaan iyo guryaha ay galahayaan iyo informationka ay sheegahayaan waa ayaka waxaan leenahay sida ay diintu waa nafaraysaa qoladii kugu xadgudubta waad ku xadgudbaysaa diintu saasay ku leedahay haddii lagugu xadgudbo waad ku xadgudbaysaa marka waxaan dhowranayna ma jirto waa inaan ku xadgudubnaa siday noogu xadgudbeen waa inaan ku xadgudubnaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed dhacdadaantii hore ee tanba ha noqoto mid ummadda soomaaliyeed midaysa ha noqoto mid ummadda soomaaliyeed meel ay uga soo wada jeestaan cadowgooda ummadda soomaaliyeed cadow aan lahayn shabaab ma laha wakhti lays eedeeyo lama joogo wakhti faraha laysku fiiqo lama joogo wakhti waxaan la joogaa aan meel uga soo jeesanayna cadowga ummadda soomaaliyeed cadowga islaamka cadowga ummadda islaamka meel kastay joogaan waad arkayseen waxay sameeyeen 500 oo qof baa ku dhimatay intaasoo hanti ah ku burburtay islaamnimada ay noo sheegahayaan bal hala sheego islaamnimadaas meesha ka timid ha sheegaan qofka muslimka ah dhiiggiisa iyo xoolihiisa waa ka xaaraam qofka kale inuu ku xadgudbo ayakuna dhiiggeennii bay bannaysteen siday dhiiggeenna u bannaysteen dhiiggooda ha loo bannaysto ayaan qabaa anigu kuwii hadda wax dilahayey oo saddexda laga qabtay meeshaas ayagoo ka soo baxay meeshii